kulankani ayaa waxa uu ahaa mid looga arrinsanayay sidii degmada Doolaado looga hirgelin lahaa canshuurta dheeriga ah ee loo yaqaano VAT-ka ee laga qaado meheradaha waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiinta maamulka degmada Doolaado sidoo kale waxa kala soo qayb galay kulankani maray ku-xigeenka wakaalada dakhliga ee dawladda deegaanka Soomaalida mudane Cabdicasiis Maxamed Cumar iyo ganacsatada meheradaha degmada Doolaado ugu horeyntii ujeedada kulankani looga hadlayay sidii degmada Doolaado looga hirgelin lahaa canshuurta dheeriga ah ee loo yaqaano VAT-ka ee laga qaado meheradaha ayaa ujeedadiisu waxa ka warbixiyay gudoomiyaha degmada Doolaado mudane Idris Jibril isagoo sheegay in dakhliga uu yahay ka dalka deegaanka iyo degmadaba lagu hormariyo kolka horeysaan leenahay waa maxay dakhligu waxa weeyaan waa dalka oo wixii lagu horumarsho weeyaan deegaanka dalka iyo degmadaba dal hadduu dakhli lahaynna dee horumar ma gaadho maanta waxyaalaha waaweyn ee maanta la wado ee abbay gidhiba sida tareenada kale jidadkan waaweyn telefoonada electriga waxyaalaha la wado waxa weeyaan waxyaalahan wax soo saarka dalka sidii loo kordhin lahaa ee dalkan Ethiopia looga dhigi lahaa wadanada dhaqaalihiisu yahay wadanada dhexdhexaadka ku jira maray ku-xigeenka wakaalada dakhliga ee dawladda deegaanka Soomaalida mudane Cabdicasiis Maxamed Cumar oo isaguna dhankiisa ganacsatadii ka soo qayb gashay kulankani looga hadlayay sidii degmada Doolaado looga hirgelin lahaa canshuurta dheeriga ah ee loo yaqaano VAT-ka ayaa waxa uu sharaxaad ku saabsan faa'iidada iyo waliba macnaha canshuurta dheeriga ah ee loo yaqaano VAT-ka uu halkaas uga soo jeediyay ganacsatadii ka soo qayb gashay isagoo tilmaamay in tusaale ahaan loo soo qaadan karo mashaariicaha horumarineed ee ka socda deegaanka gaar ahaan bilicda magaalooyinka deegaanka mashaariicda weynaa deegaanka ka socota 4 sano u dambeysay dakhligii bulshada laga qaaday ayaa lagu qabtay waad aragteen caasimadaheenna jigjigo oo kale bilicda ku soo kordhay sanadii u dambeeyay meel kale laga ma keenin waa dakhliga aynu nagu qabsanay waxa tusaale weyn loo soo qaadan karaa hidhaar haystay oo kale hidhaar haystay marka aynu qaranka oo dhan marti gelinay waxyaabihii inoo fudeeyay waxa kamid ka ahaa dakhliga marayaha wakaalada dakhliga ee degmada Doolaado mudane Cabdikaafi Digaale Braale oo isaguna kulankani ka hadlay ayaa waxa uu ganacsatada ku dhiirigeliyay in ay lahaansho ka muujiyaan maadaama uu yahay midka lagaga miro dhalin karo isbedelada horumarineed deegaanka ka socda marka taa laftirkeeda inaan faham ballaaran aan ka qaadan haddii Ilaahay yiraahdo nidaamka ma garanaysaa canshuur bixintana inuu yahay nidaam lafdhabartii horumarinta ee dhaqaalaha ah sida darteedna inaan sida ku qaadanno inaad canshuurta aad u fahantaan annaga howlwadeenaan kana laakiin canshuurtii yaa ka faa'iideysanay shacabka ka faa'iideysanay marka inaad u qaadataan waxaan annagu leenahay oo annagii uun ma garanaysaa inaan ka lidaamoonno annagii uun ma garanaysaa inaad nagu eegtaan mo waa wax inoo wada yaalo ugu dambeyntii ganacsatadii ka soo qayb gashay kulankani ayaa dhankooda waxa ay ballan qaadeen in sidii loogu talagalay ay uga soo dhalaali doonaan isla mar ahaantaasina ay aad ugu faraxsan yihiin in degmada Doolaado laga hirgeliyo canshuurta dheeriga ah ee loo yaqaano VAT-ka